munaasabad kale oo ballaaran oo lagu taageerayay musharax Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo isagu ka mid ah musharaxiinta u tartamaya maamulka loo sameynayo gobolada dhexe ayaa waxa ay ka dhacday caasimadda labaad ee waddankan Ingiriiska ee Birmingham. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u fara badan ayaa waxaa si aad loogu taageeray musharax Diinaari. waxaan caawa isugu nimiday xaflad oo aan ugu talagalnay inaan ku soo dhaweyno musharaxa madaxweynaha ee maamulka gobolada dhexe ee Soomaaliya mudane Danjire Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari. waxaan mar kale mahad u celinayaa marti sharafta ka soo qayb gashay gobolada dhaadheer ka kala yimid kuwii Birmingham deganaa. waxaan idinku mahad celinayaa runaantii maashinkiina waqtigiina qaaliga ah ee aad u soo horteen xafladan ee iskugu yimaadeen runaantii Soomaali badankeedii isna caawa ku kala maqneen. asigana dardaaran yar baan siinaya waxaan leeyahay waad noqon doontaa madaxweynaha gobolada dhexe markaad noqoto waxaa laga rabaa cadaalad dadka degan gobolada dhexe inaad nabad ka dhigto. annaga haddii aan nahay guurtida Soomaaliyeed si buuxda u taageersanahay ambassador Diinaari doorashadiisana waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo madaxweynaha gobolada dhexe ee Soomaaliya. ayadoo rag badan meesha u tartamayaan annagu marka ugu horeysa abwaaniin iyo odayaal iyo guurti waxaan u taaganahay midnimada ummadda. nin alla ninkii ku soo baxa waa madaxweynaheena mudane Diinaari oo dimaashaadkiisa u fadhino. waxaan leenahay Allah kugu guuleeyo haddii ay khayr ku tahay hadday ummadda Soomaaliyeed khayr u tahay ilaahay idankii waana ku garab istaagaynaa. waxaan aad iyo aad idinku hambalyeynaya ka soo qaybgalka ka soo qayb gasheen. waxaan jeclahay Soomaali meel kasta ay joogto ha ku midowdo wixii dan u ah ha ku midowdo wada dhalashada ha ku midowdo maaragtay deegaanada. muhiimiyaddeena waa taageerid inaan taageerno walaalkeenna isu soo taagay musharax madaxweynenimo. waxaan jecelnahay meeshaas meel ka sii dheerna inaan sii higsano. halkaan caawa waxaan u nimid inaan codkeena siino ku taageerno walaalkeena ambassador Cabdiraxmaan Diinaari. sababtu waxa weeye nin dhalinyaro oo mutacallima oo wax bartay waan u baahanahay. waxaan aaminsanahay haddii gobolada dhexe ay israacdo maamulna samaysato Soomaaliya inteeda kalena waa heshiisay. caawa waxa ay keenay laba arrimood laba nin oo saaxiibaday oo walaalahay oo aad aan isku naqaano oo midna uu yahay Prime Ministerka Cumar Cabdirashiid oo aan uga faa'iideysanaya caawa inaan soo dhaweeyo ku soo dhawow iraahdo dalka mar labaad iyo saaxiibkay Diinaari oo aanu soo wada shaqeynay oon si fiican u aqaano. waxaan rabaa hal eray inaan warkayga ku soo koobo. Soomaali weyna ku dooratay haddaad kursigaas ku fadhiisato waxaa laga rabaa in aadan noqon nin u eexda ehel gaara nin u eexda abtirsiino gaara inaad noqoto aabba Soomaaliyeed. waa mahadsantiin. maadaama aad saxafi ahayd oo journalist soo noqotay wasiir soo noqotay diplomatic soo noqotay oo aad calanka Soomaaliya uu ka horbabanayo madaxweyne oo kala aad ahayd haddana waxaan ku rajaynayaa inaad madaxweynihii goboladaas aan noqotid. waxaan rabnaa madaxweynayaasha inuu Diinaari u noqdo madaxweynihii ugu horeeyay u horseeda horta inuu dadkiisa ku dhex mashquulo dibadda ku mashquulin oo dadka way baahan yihiin uu noqdo madaxweynayaasha kale gobolada mid ay ku daydaan. dawladda Soomaaliyeed ka hormaraa waxaan rabaa in la dedejiyo oo facility iyo mataqaanaa waxyaabaha ay u baahan yihiin gobolada dhexe maamulkooda in la dedejiyo oo dhidibada loo taago sanadka cusub inta January lagu jiro ayaa ka codsanaya dawladda Soomaaliyeed. sidoo kale musharax Diinaari ayaa munaasabadaasi waxa uu kaga qayb galay khadka taleefanka isla markaana u mahad celiyay dadweynihii halkaasi ku taageeray. Yuusuf Garabay, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Birmingham.